بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبضي داودي بالكستة جوكتان سكستان داور سان يقول بحل كستان داور سان وكسر هذا بركة برنامج كأنه قبانها وري رشيد بلعب وبرنامج مالي الله إسلام بركة ماني والبحل كانوا كان حال كان وأخبار عتيف رشيد بار عتيفي أتوسق داوتهم برنامج كانوا برنامج آدي حام يحم يخضار بدن وبرنامج وشيطان كجا ورهنا حوالي بدن والدنيا ذا أو كدعية واستيدن ما أنتوا حكي هذي دونا وحلقوا بقى عبه دول بكون هي دفاع الدلك إن دلكين أي دفاعنا مهمة دليلها لأن يري وعيل نبقى هذا كهر تحيران تريه إن جبايا هذا قصاب سنيد إن دفاع الدلك يعلنك أنا وحري على يهود ما يسكي دل كماد من بعد محاديق لو قري محاديق لو قبي ديعان لو شو محاد هذا كوكو مكان لأن يري وعيل يجلس دلهم بعضبين يهوج شوك تمام تحس وحكي هذا ليس دلك يقيمه لي وحنا كان نيدر سومالي لا ميل ولا يجوغان الدنيا غداية دبد قلقل جوج iyo qurba joog غداية دبد yar iyo weyn aan leeyahay war dalkeena inay difaacano Soomaalidu wuxuu ku mahmaada waxaagad wax ku taniyo consideration kii regarding kii referring kii tixgelinta waxaad haysato ayaan bal ugu tixgelinay bari toraadee ay magaalada say kala qoban noqoto waxa la leeyahay lagu tixgelinay ma jirto waraabaha ayaan laga soo hoonooda laga soo jeedanay dad badan maanta daasad iyo dawan iyo waxaan fahmay ku garaacay iyo lixan noocaysan marka dhalinyaro meel kasta shaqo wax la dhalinyaro ay dalkeena gaar ka hayno dalkeena difaac waxa doontaa nagu qaato way kala weyn garan karnaa qiimaha nagu joogo kulli inna looga sheekay maadaama bidka iska ibtilaysan xanfal ay qaadatay iska isagu ama hunguraha qaato ama ba istisnimo kala ha qaadato ama ha fallaado saddexda mid kamidun ah ayuu baa inta badan dad wala ku reeyay xawaashiina iyada ay magaranaysa qaranimada iyo shiritaankeena wax ka sheegan laakiin dadka caadiga xalaasha ah ee magaranaysa dhiigooda iyo dheecaankooda iyo dhoobadooduba ay reer Soomaaliland yihiin wallahu warkooda waa caadiya meel adag baan wax ka taagay marka dalkeena aynu difaacana leeyahay dalkeena aynu gaar ka hayna leeyahay dalkeena aynu ilaashana leeyahay dalkeena aynu hawshii magaranaysa insha Allah taala aynu ka warhayno waa in difaacano at least meel kan hadda ka difaaci kar weydo afka lagu haye nin hadda ka horgabiya wuxuu yiri mar haddii rag iskala galadka mar wuxuu yiri doofaarka ficiliyadii dabaq naara waa tii dalaq loogu siiyay maanaan digigaxan dirirtii miyaan qabay dibnahayga yaa xidhay buu badulqaadka badan baa dabacsaday leef wax kale ha joogaan awoodii wax soo joogaan dibnihiina yaa xidhi kara baraha bulshada cidna aan lahayn baa waxa ku soo baahaysan ku difaaci dalkeena difaacan saasayro ballana meel dhinaca barbarka ka baxdo bakayla qalin meel wani joogiyay kadoo magaalada adduunyada u joognaba dhowr inta xalaasha ah ee difaacan soo taageero waayo waxaagad wax ku tooxaagad wax ku leedahay bari toole rag badan oo maanta iska dhigay noocyo kale bari marka dabada laga soo laabo ayay garan doon aboonkii faarax nuurna waa kii lahaa rag haafaqay rafiiqo la hadlayay qaar kamid ah tulkii rag haafaqay rafiiqni ma tihiin tala laga reebay meel aan laga rabin indhaha lama sii raacayo kuwaas meel aan laga rabin indhaha la sii raacayo laakiin inagu wafulimo wax ku yahay wuxuu leeyahay waxa your house is your fortress gurigaaga ayuu muhiim ah gurigeena iyo deegaankeena iyo dalkeena aynu ka warhayno taas aynu balana taas aynu isku waaninayna isku magaranaysa ku wardiyayna ku magaranaysa cibaadaysanayna taas insha Allah taala aynu balana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh